wanaagsan bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd. marka hore waxaan idinkaga mahad celinaynaa booqashadiinnan aada nagu soo booqateen xafiiska qunsuliyadda guud soomaaliyeed magaalada jidda ku leedahay. aad baan ugu faraxsannahay booqashadiinna, xog waraysigiinnana aad baan u soo dhoweynaynaa. bacda xamdillaah qunsuliyadda guud iyadoo ka duuleysa fulinaysa dardaaranka madaxda sare ee qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha, madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ay nagula dardaarmeen in aan maaragtay waxqabadka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka sacuudiga laba jibaarno, kordhinno, sida ugu wanaagsan uguna fududna jaaliyadda loogu adeego. annagoo ka duulayna dardaaranka madaxda sare ayaan muddadii koobneyd ee aan joogay xafiiska qunsulka guud oo aan ka ahaa qunsuliyadda guud, qunsulka guud ee magaalada jidda, ayaan waxaan aad ugu dadaalnay inaan waxqabad badan u samayno jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobollada sacuudiga qaar ka mid ah. dabcan qunsuliyadda xafiiskeedu wuxuu ku yaalaa jidda. jaaliyadda u baahan adeega qunsuliyaddana intii soo gaari karta waxay yimaadiin xafiiska jidda, halkaas ayaa adeegooda loogu qabtaa. laakiin waxaa xusid mudan qunsuliyadda guud ee jidda waxay uga duwan tahay qunsuliyaadka kale. shaqada bannaanka ay ku soo qabato ayaa waxay ka badan tahay shaqada gudaha xafiisyada ay ku samayso. taas waxay kaliftay in qunsuliyaddu ay magacowdo manduubiin fara badan, kuwo gobollada jooga iyo kuwo ka howlgala gobolkan aan joogno oo Makal Mukarrama. gobolka Makal Mukarrama markaan leeyahay waxaa soo hosgelaya magaalooyin badan oo Maka ay ugu horeyso, Jidda ay ku xigto, iyo degmooyinka iyo tuulooyinka Jidda raacsan oo ku teerarsan gobolkan Makal Mukarrama. intaas dad badan oo ku nool ayaa waxaa jira oon imaan karin qunsuliyadda. dadkaas waa dad ku jira goobaha tarxiilka ayaa ugu horeeya oo Shumaysi oo dhaca meel u dhaxaysa Maka iyo Jidda. Shumaysi waxaa maalin walba la keenaa dad loogu talagelayo in la tarxiilo oo aan sharciyaddii joogistii waddanka aan haysan. dadkaas waxay ku jiraan jeelka Shumaysi muddada dhoofkooda loo diyaarinayo, bookinka diyaaradahana ay ka helayaan. waxay qaadan kartaa usbuuc, 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc minimum ayay qaadataa inta looga helayo diyaaraddii iyo bookinkii. annagu ka qunsuliyad ahaan hawsheenna waxay tahay inaan waraaqahooda dhoofka diyaarinno, aan wareejinno, dowladda sacuudiga aan ku wareejinno. dadkaas waxay u baahan caawin gaar ah, leh baahiyo gaar ahna intii tabarteennaa inaan caawinno. dhowr manduub ayaa halkaa ka shaqayda oo subax walba u shaqo taga Shumaysi si ay dadkaas ula socdaan xaaladooda, baahidoodana ay u fuliyaan shaqooyinka ay u baahan yihiin, gaar ahaan waraaqaha dhoofka. waxaa kaleetoo jira manduubiin gudaha Jidda iyo bannaanka Jidda oo xabsiyada qaarkood waxay noo jiraan 70 kiilo, 80 kiilo ilaa 100 kiilo. Dahabaan meel la yidhaha ayaa ugu badan, iyo meel la yidhaha Casfaan oo uu ku yaallo xafiiska maktabul camalka oo aan mar walba tagno, manduubiinteenna ay tagaan. goobahaasoo dhan manduubiinteenna waxay u tagaan shaqooyin bannaanka ah oo ay jaaliyadda iyo dadka aan imaan karin halkan oo ama xabsiyada ku jira ama isbitaalada ku jira ama xarumaha booliska ku jira inay soo caawiyaan una qabtaan adeegga ay u baahan yihiin. intaas waa gudihii gobolkan Makal Mukarrama. waxaa dheer oo ka fara badan shaqooyinka qunsuliyaddu ay ka qabato gobollada saddexda ah oo xiga xuduudda Yaman. gobolladaas waa gobolka Jeezaan, waa gobolka Najraan iyo gobolka Casiir. saddexdaas gobol waxay xigaan dhinaca Yaman. dadka tahriibka waddanka ku soo gala ayay dariiq u yihiin. in badan oo ka mid ah waxay la kulmaan tacadiyaad, in badan oo ka mid ah waxay la kulmaan in la xiro maadaama ay si sharciga sacuudiga aan waafaqsaneyn dalka ay ku soo galeen. waxay mutaystaan xabsiyo. in badan oo ka mid ah waxaa ku dhaca dhibaatooyin ay u geystaan tahriibayaasha oo dhimasho iyo dhaawac leh. sidaa daraaddeed qunsuliyaddu waxay u samaysay manduubiin ka howlgala gobolkaas oo rigli ah oo halkaa ku sugan. waxay kaloo samaysay in ay diblomaasiyiinta jooga qunsuliyadda ay kormeer ku tagaan 3 biloodba mar inay u dirto
tiim ka mid ah qunsuliyadda ay soo kormeeraan u kuurgalaan shaqooyinkaas wixii baahi oo jirtana ay u soo qabtaan dadkaas meesha ku sugan. waxaa jirtay qunsul ku-xigeenka inuu baxay sanadkan 2023 sanadkii dhammaaday bartamiheedii oo saddexdaas gobol soo booqday oo dhibaatooyinkii iyo barbalaamadii soo xaliyey in badan oo ka mid ah jaaliyadii uu la kulmay u kuurgalay soo dhageystay baahidooda. kadib waxaan mar labaad dirnay sanadka markuu dhammaaday sanadkii 2024 bilowgeedii tiim ka kooban la taliya cali nuur iyo xoghayaha koowaad Jubayr Cumar waxay ayaguna booqasho ku tageen saddexdaas gobol Jeezaan iyo Najraan iyo Casiir. waxay aad ugu kuurgaleen maxaabiistii ku xirnayd jeelka Najraan. ribood iyo iswaraysi iyo warkala qaadasho dhex maray ayaga iyo mas'uuliyiinta jeelka waxay noo soo hubiyeen in dadka Soomaalida ah ee ku xiran jeelkaas inay gaarayaan tira 162 qof. 162 labadaas qofood inay muddo dheer ku xirnaayeen xabsigaas saddex qayboodna ay ka kooban yihiin qayb xukuman oo dil ku xukuman tiradooduna ay tahay 39 qof, qayb ku xukuman xukun dheer oo 15 sano ilaa 17 sano ka dhaxeeya, iyo qaybta saddexaad oo ah qayb xukun suge ah. qaybtaas saddexaad oo xukunka sugaysa waa qayb yar oo 15 qofood ah. 39 qofna dil ayay ku xukuman yihiin. 108 qof ee soo hartayna xukun dheer oo 15 sano ilaa 17 sano ayay ku xukuman yihiin. dadkaas xukuman iyo kuwan xukuneen ee 162 ah dembiyada ay galeen waxaa naloo sheegay inay yihiin kulligood daroogada in lagu qabtay. daroogada xukumadaas ay ku dhacayaanna ay yihiin daroogo gaaraysa 10 kiilo iyo wax ka badan, 10 kilogram iyo wax ka badan daroogaha dadkaas in lagu qabtay. waxay noo sheegeen noocyada markaan sii waraysanay annagoo hubinaynay waxyaabahaas qaadku inuu ka mid yahay. waxay noo sheegeen qaadku inuu daroogo yahay laakiin xukunkiisu uu ka duwan yahay xukunkan. laakiin daroogada noocan ah ee xukumadan ay ku dhacday ay tahay daroogada nooca xashiishka ah iyo nooc kale loo yaqaano shabwa. labadaas nooc bay noo sheegeen inay dadkan lagu qabtay 10 kiilo iyo wax ka badanna ay wadeen. sidaa daraaddeed dadkii aanu saddexda u qaybinay waxay yiraahdeen wixii dil ku xukumanna waxay ku maqan yihiin xukunkooda in boqortooyada madaxda sare boqortooyada ay soo ogolaato. wixii ku xukunaa xukunka dheerna waxay nagala shaqeeyeen in ay cafis ay noogu raadiyaan. muddo kadib waxay nagu soo wargeliyeen cafiskii aan codsannay qayb ka mida dadkii inuu helay. tirada la cafiyeyna waxay noogu sheegeen 32 qofood inay tahay. intaa markayna soo gaarsiiyeen warbixintaas waxaan dirnay mas-uulka ugu sarreeya ee maxaabiista qaabilsan oo ah xogayaha labaad ee qunsuliyadda Jidda ka howlgala Cabdalla Xaaji ayaan dirnay si uu dadka una soo arko uguna sameeyo dukumiintiyaashii dhoofka ay ku dhoofi lahaayeen. xogayihii labaad wuu tegey Najraan uu tegey madaxdii buu la kulmay aad buu ugu mahad celiyey. salaanteennii iyo salaantii madaxda ee qarankaba waa uu gaarsiiyey. 32 qofoodna waraaqahoodii dhoofka ayuu ku wareejiyey. waxay naga ballan qaadeen 76 kale ee dhiman ee xukunka dheer ku xukuman inay 4 bilood oo soo socota cafiskoodii u imaanayaan. waa 108 aan hore idinkugu sheegay oo xukunka dheer lahayd 32 waa la cafiyey. codsigii aan geynay dhowr bilood kadib ayaa cafiska u yimid. 76 kalena way sugayaan cafiskii inuu u yimaado. rajo weynna waan ka qabnaa. waxayna noo sheegeen 4 bilood oo soo socota inuu soo gabagaboobayo cafiskaas. markaasna aan mar kale tegayno si aan waraaqihii dhoofitaanka aan ugu samayno. waxaa soo haray 39 dilka ku xukuman. hawshoodu maadaama ay dil tahay way naga sarraysaa. waxaan ka codsanaynaa aan ku wargelinaynaa madaxda qaranka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya
inay gacan ka geystaan dadkaas sidii cafis loogu weydiin lahaa madaxda sare ee boqortooyada. waxaan rajaynaynaa in dilkoodaas loogu bedeli doono xukun dheer oo maxaabiis ah. maxaa jira waxaan ka war helnay kulligood inay isku dembi yihiin, kuwa dilka ku xukuman iyo kuwa xukunka dheer ku xukuman inay isku dembi yihiin oo kulligood ay daroogada wada yihiin. laakiin hadba qaadigood siduu u arko xukunkaas ayuu marna wuxuu noqdaa dil, marna wuxuu noqdaa xukun xabsi dheer ah. marka waxaan ka rajaynaynaa gacanta dowladda iyo gacanta boqortooyadaba in dadkaas dilka ku xukuman xabsi dheer loogu bedelo, kadibna aan ka shaqayna sidai ayaguna cafis u heli lahaayeen sida walaalahooda kale hadda cafiska nala kugu ogolaaday. intaa kadib nimanka iyo mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga ee xabsiyada ka howlgala waxaan aad ugu mahad celinay qoraal iyo oraal intaba shaqadaas wanaagsan ay nala qabteen. waxaan sidoo kale dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan uga digaynaa in ay iska ilaaliyaan tahriibka wadankan Sacuudiga lagu soo galayo. naftooda ayaa khatar ku jirta, maalkooda ayaa khatar ku jirta, cirdigooda ayaa khatar ku jira. waxaan ugu bishaaraynaynaa dowladda Soomaaliya inay ka shaqaynaysay bilihii la soo dhaafay heshiis dalka Sacuudiga iyo dalka Soomaaliya inuu dhex maro oo loogu fududaynayo dadka Soomaaliyeed ee shaqadoonka ah fiisooyinkii shaqo raadiska inay helaan. fiisada la yiraahdo fiisa camal ayaa diyaar ah oo labada wasaaradood ee wasaaradda Sacuudiga shaqada iyo shaqaalaha iyo tan Soomaaliya shaqada iyo shaqaalaha aan sugaynaa bisha soo socota iyo bisha ku xigta midoodba in la kala saxiixdo oo ay shaqaalaha Soomaaliyeed iyo cid kasta oo daneynaysa Sacuudiga inay shaqo u tagto inay fiisa sax ku soo gasho qarash yar oo aan badnayn iyo si aamin ah oo ku yimaado. sidaa daraadeed waxaan dadka uga digaynaa inay iska daayaan, iska joojiyaan dhoofkan khatarta leh ee naftoodiiba halis gelinaya. waana mahadsantihiin.